السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعانا ونكسن دمان صاحبada ku xiran channelka soo dhawaada. Waa qaybtii 10aad qisada wiilkii goobay wadada guusha. Qaybtii 9aad waxay noo joogtay niminka adigu waxa tahay mid aad u wanaagsan laakiin wali waxba ku dhiman. Wiilkii yaraa oo maxaa ii haday. Xaakimka ayaa ku jawaabay saamaxaad inaad wax iska saamaxdid. Inaad dadka oo dhan iska saamaxdo haddii kale qalbigaaga iyo laabtaada waxa ka buuxsami xasad, xumaan iyo shaki. waxaanad arki naftaada oo ay ka buuxdo xanuun xun oo aanin qaadi karin naftaadu. Wiilkii yaraa ayaa yiri sidee baan saamaxaad u samayn karaa? Aabahay wuu i garaaci jiray bilaa sabab, hooyadayna way ila doodi jirtay oo ay si daba jooga ii goyn jirtay, walaalahayna way ugu dheeldheeli jireen, sideen u saamixi karaa? Xaakimkii ayaa yiri iminka marka aad hadalka leedahay maxaad dareemaysaa? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay waxaan dareemayaa dareen xun. Xaakimkii wuxuu ku yiri dariiqaasi ma yahay kii guusha iyo sareynta aad ku gaari lahayd? Kii yaraa ayaa aamusay wuxuuna yiri oo suuragal miyay tahay inaan saamaxo iyaga oo waxaas oo dhan igu sameeyay? Xaakimkii ayaa yiri wiilkaygii fahan, saamaxaadu waa sifooyinka dadka awoodda leh. Waxaad wax u samaynaysaa waa Ilaahay daraadii ma ahan dadka awgii. Waa arrin adiga iyo Ilaahay idin dhaxaysa. Adigu Ilaahay baad baryaysaa oo aad u tukanaysaa si uu Ilaahay gafafkaaga kaaga dhaafo oo kaaga saamaxo adiga oo mar walba dambaabaya. Dhammaanteena waan wada dambaabnaa, iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana Ilaahay weydiisanaa inuu inoo dambi dhaafo oo uu ina saamaxo. Anas ibn Malik wuxuu yiri waxaan maqlay rasuulka Ilaahay oo leh Ilaahay wuxuu yiri ibn aadanow inta aad rajeynayso ee aad baryayso uun ku dhaafayaa dambi kasta oo aad gasho, una aabayeeli maayo haddii xitaa damdigaagu samada isku shareero oo aad dambi dhaaf i weydiisato uun ku dhaafayaa, una aabayeeli maayo ibn aadanow haddii aad ila timaado dhulka nugi oo dambi ah laakiin aad ila kulanto adiga oo aan ii shariig yeelin, waxaan kula iman arlada mugeed oo dambi dhaaf ah. Adiguna iminka wiilka yarow ma doonaysaa inaad saamaxaad bixiso mise maya? Wiilkii yaraa ayaa eegay kadibna yiri waxaan goostay inaan iska cafiyo. Xaakimkii indhaha isku qabo oo neef weyn qaado oo naso fikirkaaga gadaal u celi oo ka fikir aabaha iyo hooyada oo iska saamax. Wiilkii yaraa oohin buu qabsaday. Xaakimkii ayaa ku yiri maxaad la ooyaysaa? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay waxaan la ooyayaa waxaan dareemayaa in hooyada aabahay dulmiyay, aniga ayaana sabab u ahaa filado badan. Xaakimkii iminka u tag walaalaha oo iska saamax. Wiilkii yaraa waan saamaxay iminka. Xaakimkii ayaa ku yiri miyaad garanaysaa sababta aad u saamaxday? Maxaa yeelay waxaad bilowday saamaxaad, waxaad dareentay farxad markii aad ooyday, waxaad dareentay in dareenkii xumaa jidhkaaga ka baxay oo meeshii uu soo galay dareen wanaagsan. Taasi ayaa kuu fududeynaysa inaad wax saamaxdo. iminkana dadka oo dhan iska saamax oo dareenka xun oo dhan qalbigaaga ka nadiifi. Wiilkii yaraa arrintii uu aqbalay isaga oo dhoola cadeynaya, indhihiisana ay ilmo ka buuxdo, wuxuuna yiri weligay saamaxaad sidaan oo kale ma dareemin, maxaa yeelay waqtiyada kamida waxaan ahaa mid aad u cadhaysan, waxaan awood saaraya carada. Wuxuuna yiri xaakimkii kaasi waa meelaha uu shaydaanku dadka ka soo galo, maxaa yeelay wuxuu ku soo galayaa marka aad caraysan tahay, markaasuu mushkilada weyneynayaa oo kugu odhanayaa waxaas buu kugu sameeyay. Ujeedada shaydaankuna waa inuu Ilaahaaga xaggiisa kaa fogeeyo oo kaliya, oo uu kaa fogeeyo iimaanka, oo uu kaa fogeeyo daacada, oo uu kaa fogeeyo jacaylka Ilaahay. Waxaasi waa camalka shaydaanka. Wuxuu kaa helayaa dariiq uu ka soo galo adiga oo doonaya inaad dariiqii guusha marto, oo markaasuu culays dusha ka saaraya. Marka waa inaad Ilaahay ku xidhnaataa. Taas ayaa ah aasaaska guusha. Saamaxaad buuxda waa adiga bilaabay. Wiilkii yaraa intaa kadib maxaa xiga ayuu ku yiri xaakimkii. Xaakimkii ayaa ku yiri jacaylka Ilaahay.